الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلي هل كان ساكو حين يسوون نمي جديدة iyo gudoomiyaha waxbarashada degmada iyo qurba joogta qolo ciidina kala joogta iyo martida kalaba waxaan isugu nimeynayno ka hadalno baahida iskuulka qayba ka iskuulkan dugsiga sare Faarax Nuur Secondary School baahidiisa qayba kamida marka guud ahaan marka la eego baahidiisu runtii way tira badan tahay ama kulli waa meel shaqeynayso oo ardayda ay ka soo baxaysa baahi badan uu leeyahay waana dugsiga kaliyan oran karno deegaanka degma ahaan uu ku yaala dugsi sare ah marka baahidiisu waxay isku jirtaa dayactir qalab buugaag iyo waxyaabo kale oo badanba laakiin waxaynu doonaynaa inaynu saaka sheegno ama aynu ka warrano sidii u yara kala muhiimsan yihiin ama ay muhiimadda iskuulka ugu sii kala leeyihiin guud ahaan baahida koobaad waxaan oran karnaa maanta taala wax weeyaan macallimiinta dugsigan waxa ka howlgala 10 macallin waxaana runtii ay ku tiirsan yihiin deegaanka iyo gunada yar wasaaraddu bixiso iyo qadar oo 2 macallin runtii wax siin jirtay marka qadar waxay bilaabeen hawsha wax qabadka adigu 2010kii sanadkii adigu meerar ay dhexda ka kala godo waa jirtay laakiin marar kale dib u bilaabeen bani aadamkuna kulli markuu waxba muddo wado waa ka daalaa marka iyagu siday sheegeen hawshii kulli way ka daaleen oo imika sidii tooska ahayd wax soo bixin jireen waxay sheegeen inaanay soo bixin karayn marka hawsha macallimiintu wasaaradda waxay naqaana waxay bixisaa kuna yaroo ka kooban ka yar baan oran karaa $100 ama $100 oo wax dhiman ah marka taasi marka la eegayo macallinka wax ku filan iyo wax ku dhadhow toona ma macallinku markuu mesela Hargeysa ka howlgalayo ee dugsiyada sare joogo macallimiinta kuwa ugu hooseeya ama levelka hoose ahi waa 400 iyo wixii ka sareeya wax ku qaataan marka la eegayo macallin balgubad la imanayo waxbarashadiisii kale waayo oo adigu hawlo badan ama dana badan oo caasimadii ka imanayaan kulli wad garanaysaa culayska ilaahay waa garan kartaan marka waalidka iyo reer balgubad kulli waxba ma hakaranayaan intii karaankooda way dadaalayaan insha Allah cid kasta oo gacan ka geysan karta hawshan waxaanu leenahay gacmo faraman ku soo dhaweynaynaa waxaanu leenahay gacan ka soo geysta gaar ahaan jaaliyadaha reer balgubadle u maqan dibadda ugu maqan kulli gacmooda jirba wax ku gooyaan wax yar iyo wax badan ba marka wax la isu geegeeyin ba wax la qaban kara dadka gudaha jooga ama magaalada balgubadle iyo Hargeysaba joogaana runtii kulli waxay ka qayb qaataan ama ay horana iyagunba iskuulka u soo waday imkana iyagunba gacanta ku sii haynaya qaybihiisa kale iyo dayactirkiisa iyo horumarintiisana waa ka hawlan yihiin runtii qodobka labaad macallimiinta ugu gudbaya waxa weeyaan deyrka dugsiga oo runtii dhulka iskuulku aanu xafidmeyn la'aantii taana annaguna diyaar baan u nahay wixii qaybteeda inaan wax ka qabano idinkana cid kasta oo gacan ka soo geysanaysa waxaan leenahay hawshaas waa hawl inoo taala waa hawl mustaqbalka wax weyn inoo anfacayso oo u baahan inaan wax ka qabano waxa soo raacda solar systemka oo aanu doonayno iskuulkii maadaama imika ku helay qayb ka mid ah ardayda wax ku baran karaysa oo aynu doonayno insha Allah inaynu sanadkan bilowno walow aanay ahayn kuwa ku filan laakiin haddana wax lagu sii bilaabi karo waxaynu u baahanahay light inaynu helo joogto ah marka taana kulli solartu culays bilada laakiin culayskeedu waa wax hal mara oo iyadu waxay ku fiican tahay wax joogto ah baanay noqonin marka iyaduna insha Allah cidii karaankeeda wax ka soo geysan karta iyaduna waa saas leh waxa iyaduna baahiyaha kamida ardayda iyo sidii rigelin loogu heli lahaa marka ay dugsiga sare dhameystaan si bulshadooda wixii laga doonaya ay ugu qabtaan ay u anfacaan ardayga كل مجالات جوجا كهالكن جوجا لا فرصة معها
sidoo kale ardaygu marka la gacan qabto waxa la waxtar baa laga helaya oo wax weeyaan ardaygii wax laga bixiyay la soo gacan qabtay ee jaacada laga soo saaray inuu dib ugu soo noqdo deegaankii meel kastoo looga baahan yahayba wax uu ka qabto ayuu kala diyaar u noqonayaa hawshaasina iyaduna waa runtii muhiimadeeda leh baahiyaha kale waa tiro badan yihiin laakiin siday dee u kala hooseeyaan waxaynu isku dayaynaa in aynaan deegaanku ay wax badan iyagu qabsadaan ama ay inta ugu badan laakiin wixii ka tambata ama waxyaabahaasoo kale waa waxyaabaha culays dheeraada siile markaas waxaan leeyahay xiriirkeena gaar ahaan hadday noqoto dadkiina dibadaha xiriirka inoo dhaxaynayana waa inuu mid toosan noqday ku fiican tahay oo had iyo jeer waxaad moodaa dadka dibadda jooga waxaa ku badan warka war meel laga ilo aan lagu kalsoonayn mar walba laga helay dhacda marka wixii war ah ee loo baahdana dee maanta isgaarsiintu way iska sahlan tahay marka guddida waxbarashada iyo maamulka dugsiga iyo maamulka waxbarashada heer gobol iyo heer degmaba inaad la soo xidhiidhaan oo systemkii aynu wax u wada qabsanayno aynu ka wada shaqeyno ayaan idin soo jeedin lahaa aad iyo aad baanan idinku mahadnaqayaa dhammaan cid kasta oo horumarka gobolka wax ka geysanaysa ama cid kasta oo bani aadamnimada iyo ay ku weyn tahay in wax qabad loo sameeyo ummadda assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu secretary-ga waxbarashada dugsiga Faarax Nuur iyo maamulka dugsiga sare ee Faarax Nuur iyo gurba joogta nagala soo qayb gashay halkan iyo bulshooyinka kale kuwa laga maqan kuwa joogaba waxaan ka sheegayaa baahiyaha iskuulka anagoo guddiya anagoo marka dhex fadhina library-ga dugsiga sare anagoo dhex fadhina waxaan ka sheegayaa baahiyaha iskuulka iyadoo maamulaha dugsigu yani baahida inteedii badneed uu sheegay waxaan kan anugu fariin uga farayaa jaaliyadaha dibadda baahiyaha iskuulka iyadoo sida aanu maamuluhu waxba ka tegin deerka oo kale yani muhiim tahay يعني دير كيس إمك وحلاقة قبته يعني صار لرتاق وحلاقة قبته إم بركة بيوت أنا قلت لك قال لي دوكسك سنة إنه هذا إذا كل هذا السمايو بهايها صار بحنو شيء أنا لقى قبته وأبجد أهان يدي بدهان بقى سيدي أنا سوي حرم الهين عمار تعسي إنه ساك 10 الهين سو دوكس جاي إنه دوكس هرمون سمايو النقطة أيام فتشينا هدال كردقو يعني نقلا سوق بقشان إلا تابع هذا معلمين تبكش كي معموله إذا لفت كذا الواحد ماشي كتيره مرمى صورة دو واحد دون هدال كردقو إن تعليه ذهن الدبدو أنا أقول أنت إذا قدرت شفتها مرة أنا أقول هاو شيء هذا يبي تلقى كي قاون وذنا سيدي على الهربة وذني ما كان هدال كردقو واحد يكون بورينا يعني أنا إذا كنت أنت كراكينا أنت عسي نقلا سوق بقشان guddida waalidiinta secondary Faarax Nuur waxaan halkan maxay ka marxaati kacaya baahiyaha ballaaran ee imika sheegan maamuluhu iyo xubinta guddida kamid ah inay ka jirto dugsiga secondary Faarax Nuur marka waxaan halkan ku codsanaynaa jahliyadaha u dhashay gobolka Hawd inay baahiyaha wixii ay ka tari karayaan iyagu ay ka soo taraan annaguna guddi ahaan iyo magaal ahaanba abaabulkaygu aad u ballaaran yahay wax qabadkayguba idinkuna waxaan leenahay iyadoo baahiyaha ballaaran jira inaad sidaa idinkuna ugu tala gashaan hadee barnaamij ka noqdo soo helo hawaayin wadan leeyahay jahliyada waana mahadsantii bismillaahir rahmaanir rahiim ugu horeyn halkan waxaan ka salaamayaa guddida waxbarashada gurbajoogta maanta nagala soo qayb gashay shirkan aan ku qabanay dugsiga sare ee Faarax Nuur haddii aan ka warramo baahiyaha guud ee waxbarashada baahiyuhu way kala muhiimsan yihiin laakiin waxaan soo qaadanaynaa un bal inta ugu muhiimsan ee aanu u awood weynay in aan wax ka qabanno baahida koowaad waxa weeyaan koow sida aad la wada socotaan dugsiyada hoose dhexe ee ku yaala tuulooyinku had iyo jeer ardaydu marka ay fasalka afraad ka baxaan ma helaan waxbarasho waxa lunta waxbarashadoodii sababta ay ku lumaysaan waxa weeyaan meel ay higsadaan oo ay tagaan ma jirto sidaa awgeed ilmahaas sanadkan waxaan ugu talagalnay in school boardana oo ku yaala Beligweedle oo ay yaalaan sariirihii iyo qalabkiisii aanu ka soo ardayda ilmu jirtay aanu keeno
dugsigaas ardaydaas oo dhan 40 arday maadaama iskuulka ay yaalaan sariirihii iyo qalabkii wax lagu karinayay iyo fasaladii wax ku dhiganayeen iyo dhulka loo banaanba uu leeyahay iskuulkii waxaan ugu talagalay ardaydaas inaan ka soo ururino dugsiyada Kumburaha Baargo Gumar Darfaale afarta iskuul inaan ka soo ururino ardaydaas lumi jirtay waxbarashada lumi jirtay ardaydaas markii aanu qiimeynay ee aanu si walba wax u eegnay waxa ku baxaya bishii waxay noqdeen $40 $40 ala shakhsi ayaa ku baxaya arday kasta marka waxaanu codsanaynaa 20 qof oo bixiya $40 oo ardayda ugu soo tadawuca ayaan ma garanaysaa codsanaynaa si ay ardaydaasi ugu nagaadaan sanadkan dugsiga taasina waxay noqonaysaa dee sadaqad bay u noqonaysaa qofkii wax bixiyay ilaahayna uu ka jazaaisiinaya marka waxaan leenahay waxaan codsanaynaa markaa bal 40 arday in kharashka ay u baahan yihiin cidii wax ka qabanaysa ay ka soo qabato ayaan u baahannahay jaaliyadahan meel kasta ay joogaanba arrinkaas waanu gaarsiinaynaa taas waxa ay wax ka taraysaa 40 arday waxa wax ka tarayaan dugsigan aan maanta fadhino laftiisa tacmiir bay ku samayn doonaan oo waxa ay u soo gudbi doonaan maxay marka ay dhameystaan dugsiga hoose dhexe Beligweedle waxay u soo gudbi doonaan dugsiga secondary Faarax Nuur ayay u soo gudbi doonaan waxyaalaha ugu waaweyn ee maanta gobolka ka dhiman waxa ka mid ah iskuulka boodhanka ah gobolada dalka waa ogtihiin in ay dhammaantood wada leeyihiin iskuul boodhan jaaliyadaha ku nool dibadaha u dhashay gobol kastaaba waxa ay wax u taraan dadkooga ayay wax u taraan laakiin inaga waxaad moodaa jaaliyadaheena dibaddu in ay kaalintii ay ku lahaayeen gobolkan hawd ay ma garanaysaa gaabis ahayd oo aanay ma garanaysaa wax taro oo saa si weyn aanay had iyo jeer soo gaari jirin marka laga reebo jaaliyada qadar ee caawin jirtay dugsigan Faarax Nuur Secondary marka jaaliyadaha waxaan leenahay la mid noqda jaaliyadaha gobolada kale u dhashay ee habeen walba aad shaashadaha ka arkaan waxtarkooga iyo sida ay u qiimeynayaan goboladooda ay taa waxaan leenahay arrinkaas hadaad tihiin jaaliyadaha dibadda warar khaldan haddii la siin jiray iyo haddii ma garanaysaa si khalad wax lagu sheegi jirayba arrinkaas waxaan leenahay cid kasta ha u dhagdhigina ciddii horumar wada uu wax la qabta wadankiina maanta uu idin baahan yahay gaar ahaan gobolkan hawd kaalintiina way ka maqan tahay marka la eego kaalinta ay ku lahaayeen qurba joogtu gobolkan aad iyo aad bay uga liidataa marka waxaan leenahay taana bal arrinkaas ay waxbarashadu ugu horeyso wax ka soo qabta qodobka labaad waxa weeyaan baahida ay sheegeen qolada waxbarashadu maamulaha iyo guddida waxbarashadu ugu muhiimsan yihiin macallimiintu anigu waxaan arkaa qodobka ugu muhiimsan inuu yahay xagga macallimiinta sababtoo ah iminka iskuulka furitaankiisii waxaa ka haray muddo yar oo kooban oo 10 cisho ah macallimiintii ardaydu way imanayaan marka macallimiintii ay jaaliyadii qadar wax siin jirtay way ka baxeen laba macallin oo wax siin jireen labadii macallin maanta way nagu soo muruxsadeen marka labada macallin iyo iskuulkoodii macallimiin kale oo baahan iyo sanadka in macallimiinta la kordhiyo iyaguna baahidoodii waa baahi ay ka baxsan in aan wax ka qabanno haddaan nahay guddida waxbarashada iyo maamulka iyo maamulka waxbarashadu baahidaas waxay noqotay baahi si lama filaan ah noogu timid sidaa daraadeed baahidaas waxaan leenahay maadaama ay tahay baahida ugu muhiimsan ee dugsigan ka jirta in iyadana si dhaqso ah aad uga soo jawaabtaan haddii aad tihiin jaaliyadaha ku nool dibadaha baahiyaha kale ee dugsigan ka jira iyaguna waxaa ka mid ah sida ay sheegeen dayrka dugsiga waxyaalo badan ayuu dawo ka yahay waxa weeyaan iyadoo oo dhulku ciriir yahay
iminkana dhulkii dadkii lagu saliday yacni wuxuu difaac u noqonayaa deyrkaasi nabadgelyadii iyo hantidii ma garanaysaa dugsigu lahaa iyo ma garanaysaa dhulboobkii ayuu dawo ka yahay marka taasna waxaan leenahay bal arrinkaasna sida ugu dhaqsaa badan leh haddii la yidhaah waa baahiyaha noogu muhiimsan ee aan doonayno in aad wax ka qabataan waxaan kusoo gabagabeynayaa runtii jaaliyadaha dibadda haddii aad tihiin aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin waan idin salaamaynaa fariin baan idin gaarsiinaynaa fariintaasi waxa weeyaan maanta waxaa waddanka ka socda horumarkaasna waxaa inta badan ka qayb qaata jaaliyadaha dibadda haddii aad tihiin jaaliyadihii gobolkan u dhashay horumarka waddankiina iyo gobolkiinu cidda ay sugayaan maanta waa idinka annaguna wixii aanu qaban karno dee baahidii baanu dhex taaganahayoo wixii aan wax ka qaban karno ee awooddayada ah inta badan waanu qabannaa wixii aanu awood u weyno ayuun baan idiin soo gudbinaa taasi markaas waxay keenaysaa isku xidhnaan markaa waxaan leenahay haddii aad cid kale la xidhiidhi jirteen iyo haddii kaleba waxaanu jecelnahay in aad si toosa beligwadla ula soo xidhiidhaan oo wixii waxbarasho ah iyo wixii baahiyaada iyo wixii waxqabada aad si fiican noola soo xidhiidhaan waanad mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة يا جد ده وحبرشة معمولها سكولك كل جد تاني ماشي كصوت قريب كشيبة. سلام جود بارد بالسلامة يا وأنت أركان نشوفنا هرت هو سكول كي سريع كتير سكول كي فرح نور بحياة عن سكول كي مكان وسوق بسم ولدين الجد ده كل يوم حلاها على شغل قرب تشوكين قرب تشوكو هذا بقى أنا أنت هرت عني جاي يقول عضي aad baana la igu canaantay idinkuna kulli tacaanta waa la qabtaan way la leedin daadjin dadkii wadanka ka maqnaa horumarka wadanka iyo gobolada ka socda waxa inta badan horumar kale oo soo saara oo dadka wax qabta waa qurba joog gobolkan lahaa horta way ka maqan wax qabashadiisii waan idinka markaad furana wax qabashada way ka maqan tahay gobolka hadayna lagu canaantaana waajib bay leeyihiin inkastoo aniga keligay ku dhacday aniguna idinkaan idin soo gudbinayo qurba joog oo canaanta intii ninkan ay ku canaanaya gobolka waxa uga weynaan qaban baahi badan baa taala iskuulku wax badan buu u baahan yahay dhakhtarku wax badan buu u baahan yahay gobolku wax aan u baahnayn oo wax qabad badan ayuu u baahan yahay wax qabadkaan inagaan ay laga sugay baahiyo badan baa imika inoo sheegtay guddidu wixii dee karaankeenna aynu qaban karno waxaynu la gudboon inaynu qabanno horena wax ugama inaan qaban runtii sida ay sheegayaan waa dhab waxaynu uga qabanay iskuulka iyo gobolka gebigiisa meel waxba maanaan ka soo tarin runtaa wanaagsan waxaasna waxa ugu wacan de wada xidhiidh iyo wada socod iyo wada shaqayn maynaan lahayn baahiyo badan oo gobolku leeyahayna runtii mina soo gaarino aanu idhaahno amba de waxaasaa la idiin soo furayo qaban weyda de horta waa baahidii ugu horreysay na fartaana tidhahda waan u baahannahay taana de wixii ilaahay uu naga soo qaaday ayuunba arki doontaan laakiin waanu ku dadaalaynaa inaanu wax ka soo qabanno baahiyaha sheegteen baahidu kuma koobna iskuulkan oo qura dhakhtarkii baa jira iskuuladii kale jira boodharka iskuulkii baa jira waxyaabo fara badan ayaa jira oo baahi oo gobolku u baahan yahay waxa fariintan waxa xambaarsan tahay filimkan markaa dee aynu wada daawanay sida imika amba soo socota sawirka ka arki doontaan marka ay agtaan waa arki doontaan baahida badan ee waddanku u baahan yahay fartanka macallin iskuul ardayda laga soo qaadayo gobolada ee kala doonaya tuulooyinka laga soo qaadayo waxay u baahan yihiin dee iyagu quladkoogu waxqabad badan meel ay seexdaan iyo dee border iskuulkii meelaha sariirina way yaallaan sida guddida inoo sheegtay laakiin mushaharkoodii iyo cuntadoodii iyo dee wixii ay ku noolaan lahaayeen kolley innagan ay naga doonayeen fartanka horta arday labaan ballan qaadaya anigu insha allah inta kalena waxa noo yaalo intii qurba joog ah waa ubadkiin waxa laga soo qaadana waa tuulayaashii gobolka cid kale oo kafaalo qaadan kartaana ma jirto waxaan idinku boorinayaa inaa inta kale dee qaybsataan oo mid laba qaadiyo mid qaadaba aa qaybsataan sida imaka dee ka muuqata gobolka sawirada aa arki doontaan imaka soo socda marka aragtaan dee gobolkiiniyo iskuulkiiniyo aan deer lahayn waa riyihii soo gelayaan oo wada baylaxsan idinkuba way idinka arki doontaan
filimka inta soo socotay ka daawan doontaan waxaana looga baahan yahay wax qabad dhaba oo inaga niyaa oo aynu gobolkeennii iyo waddankeennii iyo iskuulladii iyo dhakhaatiirtiiba aynu qabanno qoryihiina guddidaana canaantaana ugu canaanateen in leedihiin waddanka waxooda midaa soo qaban aad baa horta ugu mahadsantihin dadkuna waxaa u fiican marka la wax wada qabsi laga hadlayo iskaashada aynu samayno dee qaybtiini way maqanta marka la leeyahay dee waanu qaadanay wixii ilaahay laga soo siiyay ee halkaa ka soo baxana waanu ka qaadan doonaa qaybteeda waanu qaadan doonaa inta ugu weyn weliba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaahi raxmaani raxiim anigu waa cabdikariim maxamed xaaji cali waxaan horta halkan uga mahadnaqayaa ilaahay mahadda ilaahay kadib كل هذا الكوى اللي دميه وحدت كي جوريه وحمني جوريه أي هذا الكي دميه أنا قلت لكم إيش اللي تضيعش مقالة يدا اللي يرى الله بس أنا بحياة بس إن شاء الله عدكم تكون ضياع مركا أرتا أرنتا أرتدا لبلان قاضي اللي هلا كان اللي يدوا بهاي waxay ka imanayaan tuulooyinka waa arrin aad u wanaagsan laba arrimood bay labada tahay mar ubadkeeni waynu wax baraynaa marna dee magaalooyinkeeni waynu camiraynaa marka ardayda imika gumbraha 10 arday hadii laga soo qaado oo iskuulka ka bixilaa markay 6 marayaan arday walo ardayga 3ga taagan wuxuu ku dadaalayaa inuu 6 gaaro si uu isaguna board inuu helo dadkiisa wuxuu u taraan marka iskuulkii hoose dhaxeeyay gumbruhuna waa camirmaya gumar waa la mid baargo waa la mid rafacla waa la mid tuuladii kasteeda iskuulka dhexe yeelatay ardaydeedu ay daciifayaan ba in la caawiyo waa muhiim waliba inta waxaan ugu darayaa marka boardingka la keeno ilaahay khayr siiye nin ganacsade Xuseen Geesh la yiraahdo wuxuu ballan qaaday inuu macallimiintii diinta baraysi keeno marka gelinka hore markay iskuulka caadiga dhigtaan 40 ka ardayna inay 2 sanadood quraanka ku xifdiyaan ayaynu qorsheynaynaa marka xitaa amal diiniya meesha ku jiray amal diiniya meesha ku jiray yaan loo daganin oo ardaydaas de marka board lagu xareeyo ma inta iskuulka tagaan ku bad ciyaarayaan waxaynu uga faa'iideysanahay imka Xuseen Geesh 100 arday ku dhawaad buu hayaa macallimiinta isaga ka bixiyo quraanka ardaydii 6 bilood iyo sanad dhiganaysa imka turjumo quraanka way dhameynayaan marka iyagu iskuulkii kala dhiganayay quraankiina inay dhigtaan oo isaguna u ballan qaaday iskuulka hadii la furo macallimiinkeena iyo quraanka u dhigta marka 12 waxaana iyo 3 ee labada la toosiyay ilaa 6 iyo barka marka quraanka loo dhigo ee loo diyaar way xifteeyaan quraankii marka dhammaan shariicada islaamka ayaa halka loogu dhigayaa sidoo Xuseen ballan qaaday marka ayaan loo tagnaa ardaydaas dee amal diini inuu ku dhex jiray loo soo dadaalo waxa kale oo halkan uga mahadnaqayaa inaan marwe ah oo qaali inagu ah hodana yaale oo ka dhiftigan oo hal macallin iskuulkan sare ugu soo ballan qaaday oo tiro wax bixinaya hal macallin waa macallimiinta diinta ka dhigta hal macallin baan bixinaya qarashkiisa aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaan leenahay macallin qofkii kale ee saa macallin u qaadanayana waan soo dhaweynaynaa hodana yaalla waliba macallinkeedaas wuxuu ku soo beegmay xilli dhaqaalihii iskuulku ka heli jiray qurbajo uu kala jaban ku dhacay meel wanaagsan bay iyo xilli wanaagsan iyo waqti daayicii bay goolka dhalisay jasaakallahu khayr ilaahay naxariistiisa ha kugu deeqo caafimaad sareecana ha ku siiyo awlaadda ilaahay ha kuu xafido maalka ilaahay ha kuu barakeeyo ayaanu leenahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu كلي صدق الله كيسان جلاسك وجلاسك فهمونك إنك واحد كلاست لو ذاك على السلم ويراه حلي فسح الوجرة مركا صلوا الله كيسان from 1 إلى 4 دمانتو واحد يوصل يعتير إن مرمى الله كلاس كستنا مرمى كسوريا لا أرضنا سمك وحبرشلوني يدوري أبي في عنان سامر في الكلاس كذا هجاكير يعتير كأرنا ولا هجاكير قيبها دمرة حفيز كيو دارة كيو حاسن إن شاء الله مستقبل كحنو دوّن إن شاء الله كشقين دولا يلا ما ليه دولا ما مركزي مرة كارنتي قيمة بدون موقع عيار حلقة إن إنك لح كلاس بنورنا شن كل يوم تقريبا عقول جنتا سيد بقول لهاس أيا كوك عدين تاسو على ما كانوا سميني مركا هو كنت هو مرة آدي في عانو دل الجاري أنت دمنا ساسو يسوس درس عن إن شاء الله
barashada cilmiga inaynu ballaadhino jaliga laga baxa rabo